madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in Ethiopia ay ku sii waari karto oo kaliya hanaanka federaaliga iyo dastuurka saldhigga waa dimuqraadiyadda iyo horumarka dalka. shacabka magaalada Jigjiga ayaa wadooyinka iyo garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga ka dhigay dibadbax ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan kooxaha Onag iyo Gimbood Sabat. warbixin muurtaasi ku saabsan oo faahfaahsan wariye Xasan Aga Ismaan ayaa inoo soo koobaya. wadooyinka waaweyn halbowlaha waa magaalada Jigjiga waxa camiray oo ay la circirayaan shacab aad u tiro badan oo guryahooda uga soo baxay inay muujiyaan sida uga cadhaysan kooxaha aaminsan fikirka isla weynida qayaxan aragtida ciriiriga iyo dulsaarnimada ee ku taamaya inay burburiyaan hanaanka federaaliga ee ku dhisan midnimada rabitaanka qowmiyadaha ku salaysan. shacabka qaybihiisa kala duwan oo watay boodho ay ku qoran yihiin halku dhagi ay ku cambaaranayaan kooxaha doonaya inay dalka dib ugu celiyaan dhigyacabkii dargiga ayaa ku dhawaaqaya weedho ay ku diidan yihiin isku dayga guracan ee kooxan argixisada Gimbood Sabat iyo Onag oo ah urkalayaasha shacbiga u shaqeeya. Gimbood Sabat Hadaan shacabka magaalada Jigjiga oo afarta jiho isaga yimid ayaa waxa barkulan u ahaa garoonka kubadda cagta ee Jigjiga oo ay isku arkeen bulshadii ku midowday difaacidda hanaanka federalismka ee ka jawaabay su'aalaha ay qabeen muddada dheer qaarkoodna ay dhasheen ba xilliga federalismku uu jiro. kasoo shacabka waxa dibadbax looga soo horjeeday Gimbood Sabat iyo Onag ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dawladda ugu horeeyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweyne ku-xigeenada iyo golaha wasiirada. madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo shacabka kula hadlay garoonka kubadda cagta magaalada Jigjiga ayaa sheegay in nidaamka federalismka iyo dimuqraadiyadda ay ka hana qaaday waqti xaadirkan Ethiopia cusub oo abuuray in qowmiyadaha iyo shucuubuhu ay si nabadgelyo ugu wada noolaadaan deegaanada dalka. madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa xusay in ururada doonaya inay soo celiyaan dargiga in shacabka iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida Ethiopia ay raalli ka ahayn in dargiga iyo wax la mid ah dalka dib loogu soo celiyo. waxa aan ogsoonahay shalay dhibaatadii uu lahaa dargigu iyo dhibkii uu lahaa nimankii dargiga ahaa ee dogeydeen ayaa dib isku soo abaabulay oo rabay inay waxa weeyaan xukunkii ay dawladda federaalka carqaladeeyaan oo mar labaad ay Ethiopia dib ugu soo noqdaan iyaga oo sheeganaya ururo kale iyaga oo siyaabo kale u socda. marka waxaan leenahay haddaan nahay shacabka deegaanka Soomaalida iyo xukuumaddiisa mudaharaadada laga sameeyay Gondar iyo Baxardar iyo meelo kamida Oromia waxaan leenahay waa sharci darro waxay u mudaharaadayaan waa dambi waana waxa weeye sidii mar labaad dhergigu soo noqon lahaa. marka anagoo Soomaalida oo shacabka Soomaalida iyo xukuumaddiisa waxaan u cadeynaynaa in mar dambe deegaanka Soomaalida xukun dhergi la yidhaaho ama wax u egtoona inuuna soo noqon karin. madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo tilmaamay wadiiqada kaliya ee Ethiopia ku sii jiri karto inay tahay federalismka iyo dastuurka gaar ahaan haddii qodobka 39 la taabto in dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia uu ku xiga dagaal. Ethiopia waxa Ethiopia ku ahaan kartaa oo kaliya waa federalismka iyo dastuurka. haddii uu dastuurka meesha ka baxo dastuur cusub ma qaadanayno Ethiopia kalena ma qaadanayno. haddii dastuurka meesha laga saaro gaar ahaan qodobka 39 oo waxa Ethiopia isku aaminaysaa haddii saas u dhacdo waxay noqonaysaa in deegaanka Soomaalida Ethiopia uu dagaal kala hortagi wixii dhergi iyo arrimihiisa iyo Gimbood Sabat male. madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar maruu ka hadlay waxay ka dhigan tahay dastuurka la fargeliyay waxa uu sheegay inay ka dhigan tahay Ethiopia nimada oo lagu tuntay taasina aan la aqbali karin dibadbaxyada sharci darrada ee Gondar iyo Baxardar iyo goobo kamid ah deegaanka Oromia ka dhacay ee lagu doonayo in dib loogu soo celiyo faashistihii dargiga. Ethiopia ka dambeyn karta dastuurkana ma jirto haddii dastuurkaas waxa weeyaan la farageliyo waxay ka dhigan tahay Ethiopia-nidii waa lagu tuntay waayo shalay
iyada oo waxa weeyaan burbur qarka u saaran ayuu dastuurku yimid oo dib isugu celiyay maanta haddii waxa weeyaan goondar iyo baxardhaar looga mudaaharaanayo sidii dhergigii uu waddanka u qabsan lahaa waxaan caddaynaynaa inaan ka soo horjeedno mana aqbalayno soomaaliduna halka ay taagan tahay inay hore uga socoto mooye dib uga soo noqon mayso taasa xaqiiqa madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo si kale loo cambaariyay dhacdadii foosho xumeed ee lagu barakiciyay dadkii u dhashay deegaanka Tigray ee deegaanka deegaanka Axmarada arrinkaas oo ku tilmaamay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar mid ay ka faa'iideysan karaan dadka aaminsan aragtida ciriiriga iyo isla weerida qayaxan ee ku nool deegaanada kale dalka madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa cadeeyay kala duwanaanshaha qoomiyadaha ee luqadda dhaqanka iyo diintu ay yihiin quruxda midnimada iyo wada noolaanshaha ku dhisan dastuurka dalka sida darteedna ay yihiin qiyam muqaddas ah oo lama taabtaan dhankooda shacabka magaalada Jijjiga ee dibadbaxan looga soo horjeeda kooxaha Gimbood Sabbath iyo ka soo qayb galaya sheegay in libinta ay ku heleen federalismka iyo dastuurka in laga waxyeelayo ayna sinaba ugu dul qaadanin isla markaana dawladda federaalka ee dowladdeegaanka Soomaalida Ethiopia ay ku garab taagan yihiin horumarka maamulka suuban iyo dimuqraadiyadda ay ka wadaan dalka ma aqbalayno haraadii dhargigi onad obo haddii ku soo walahay shacbiya waxa soo dhan amaasiir baan anagu u naqaana waana la dagaalamayna haddii ilaahay noo idmo haddii ay systemkan ay rabaan qolyahani ay systemkan nagu qasbaan dadka waxa weeyaan u baaba'aya ma wuxuu noqonayaa waa anaga mustaqbalku ka lumayo dadka hadda jaamacado waxa weeyaan ku jira dadka mustaqbalkii berita waa annaguna marka annaga ka ilaashanayna hadday shalay hooyooyinka iyo aabayaashay ay u soo halgameen inay naga ilaaliyaan oo dhargigii naga eriyeen oo waxa weeyaan dhiig loo bixiyay annaguna imika annaga ilaahay baan nagu sameeyay baan leenahay sareedada annaga ka ceshanayna xornimadeena waynu u dagaalamaynaa madaxweynaheenu ha noolaado madaxweynaheenu ha noolaado dowladdeegaankeenu ha noolaado IPR ha jirto ha joogto dowladdeenu ha jirto ha joogto maanta waynu midaysannahay midnimadaasaynu ku dhimanaynaa